السلام عليكم كلان وعن oo wanaagsan dhageystayaal waxaan maanta jaleeci doonaa waxa ay tahay hogaamintu balse intaan galin waxaan guud mar ku sameyn doonaa hogaamiyaha hogaamiyuhu waa hage waa badbaadse waa ballaarshe waa bidaanshe waa isku tole waa geed harweyn afhayeen waa halwadeen hogaamintu waa mas'uuliyad waa amaano waa culays waa xidhiidh dhaxmara hogaamiyaha iyo hogaamiyaha waa ballanqaad la isku xisaabtami doono adduun iyo aakhiro labadaba hogaamintu waa wax qof kasta u baahan yahay rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee isagoo dareensiinaya muhiimadda hoggaanka uu leeyahay waxa uu yidhi saddex qof haddaad tihiin midkiin u doorta hogaamiye camal kasta oo si wada jir ah dadku u samaynayaan waxa lama huraan ah inay leeyihiin hoggaan tusaale ahaan salaada jamaacada iyo waxay u baahan tahay hogaamiye imaam jihaadku wuxuu u baahan yahay hogaamiye sidoo kale tuulada degmada gobolka wadanka iyo hay'adaha shakhsigu waxay u baahan yihiin hogaamiye haddaba dhageyste haddii aanu intaa kaga imanno gudumarka hogaamiyaha waxaanu geli doonaa waxa ay tahay hogaamintu waa mowduuc hadalhayntiisu aad u fara badan tahay amaba sida Barnes 1979 tilmaamay waxa loogu hadalhaynta badan yahay looguna fahanka yar yahay dhinaca hadalhayntiisa 1 Janaayo 2009 shirkadda Amazon waxay haysay buugaag sare u dhaafaya 45,000 oo la xiriira hogaaminta bogga macluumaadka baara ee Google haddaad ku qorto kelmadda leadership waxa uu soo qaabanayaa qoraallo sare u dhaafaya 155 milyan oo 2009 haddana inuu dhaafay intaas waa hubaal macluumaadka baaxaddaas la heli karo haddana ilaa hadda la iskuma raacsana qeexidda hogaaminta waagii hore marka la rabo in la qeexo hogaaminta waxa humaag laga bixin jiray waxa ka soo horjeeda hogaaminta oo ah maamul tusaale ahaan waxa la oran jiray meesha maamulku joogteeyo hogaamiyuhu waa jiha badashaa qoraalada guddiga u noqonaya hogaaminta laftirkoodu ma fududayn in la helo qeexid la aqbali karo tusaale ahaan Joel 1998 wuxuu ku tagay in aysan jirin qeexid sax ah oo hogaamintu leedahay Note House 1997 wuxuu ku dooday in ay jiraan tiro qeexid ah oo la eg tirada dadka qeexaya hogaaminta qof kasta wuxuu la imaan karaa qeexid u gooni ah hogaaminta waxaa lagu tilmaamaa wax muuqaal fiican aalad ama matuul la isticmaalo si dadka loogu bidhaamiyo hiraal loona soo jiito raad ka tegid hagid wax dad yari gaari karaan hogaamintu waa kelmad leh macnayaal kala duwan tusaale ahaan Barnard 1938 kelmadda lead wuxuu yiri waxay noqon kartaa magac iyo fal sidaas awgeed waxay yeelan kartaa macnayaal kala duwan muraad 1996 hogaamintu wuxuu ku qeexay awood lagu adoorisi karo mustaqbalka laguna soo bandhigi karo xal dad yari sawiran karaan adoorisidda iyo bandhiga xalku waxay ka mid yihiin hawlaha hogaamiyaha kuwooda ugu muhiimsan Daaw 2008 hogaamintu wuxuu ku qeexay xidhiidh dhexmara hogaamiye iyo la hogaamiye shacab oo ujeedadiisu tahay in la sameeyo isbedel wixii isbedelkaas ka soo baxana noqdo wax la wada fiirsanayo haddaad u fiirsato qeexiddan waxaad arkaysaa in hogaamintu tahay xidhiidh dhexmara laba dhinac shacab iyo hogaamiye haddii mid ka mid ah meesha ka maqan yahay hogaamintu micno ma sameynayso ujeeddada xidhiidhku waa in isbedel la sameeyo haddaba si isbedel loo sameeyo waa in hogaamiyuhu wargelin joogto ah la sameeyo dadka uu hogaaminayo ama shacabka isbedel wuxuu iman karaa marka wargelintu noqoto mid aan caad saarnayn qalbiga dadkana ku duuxaysa dhadhan macaan leh ujeeddada ugu weyn ee ka dambaysa isbedelkana waa in la gaadho himilo Note House 2004 hogaamintu wuxuu ku soo koobay 4 walxood hogaamintu waa helin hogaamintu waa soo jiidasho hogaamintu waa wax ka dhex dhaca dad koox ah
hogaamintu waxay la xiriirtaa sidii loo gaari lahaa yoolka. haddaanu ka eegno dhinaca islaamka, hogaamintu waa ammaano, waa mas-uuliyad adag, waana ballanqaad. rasuulka nabad iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu caddeeyey in qof kaste yahay mas-uul lagana xisaabtami doono mas-uuliyaddiisa. dhinaca kale, hogaamintu waa saynis misena waa farshaxan. sayniska waxa markhaati ugu filan baaxadda iyo tirada daraasadaha lagu sameeyey hogaamintu inay sare u dhaafeen 45,000 oo isugu jira buugaag, cilmi baadhisyo iyo qoraallo cilmiyeed. dhinaca farshaxanka, hogaamintu waa wax loo fuliyo qaab hal abuureed ku dheehan tahay. dadka qaar waxay isku khaldaan hogaamiyaha iyo makaanada ama jagada qofku kaga jiro silsiladda maamulka. laakiin sida la xaqiijiyey, qofka ku fadhiya kursiga ugu sarreeya markaste ma noqon karo hogaamiye. hogaamiyaha dhabta ahi wuxuu noqon karaa mid fadhiya meel dhexe. ma aha qof dadka ugu aqoon badan, qofka ugu geesisan, kan ugu caqliga badan. si kastaba ha ahaatee, waxaan odhan karnaa hogaamintu waa wax ka dhex dhaca ugu yaraan 2 qof. waxaa muhiim ah in ay jiraan dad la hogaamiyo. sidoo kale, hogaamiyuhu wuxuu noqon karaa hal qof, wuxuuna noqon karaa koox dad ah oo si wada jir ah wax u hogaamisa, collective leadership. isku soo duuduubo, waxaa la odhan karaa hogaamintu waa hanti ay leeyihiin mujtamacu ee maaha hanti hal qof leeyahay. waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga. fadlan si aan ugu dhiiranno inaan xogo kale, sheekooyin kale iyo macluumaad kale inaan kusoo gudbino, taabo subscribe ama rukumo hadba saad u taqaano. mahadsanid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.